Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta sharafta leh. Waxaan idiin wadaa maanta mawduucan u magac darnay shar ku tasho. Haddaan idiin dhammaystirin waa shar ku tasho khayr wax kama dhibe. Walaalkay iga qaaliga ah, walaashayda qiimaha badan, waxaan ku leeyahay waa lagu dulmin doonaa, waa lagu diidi doonaa, waa lagu dayici doonaa, waa lagu dabamarayn doonaa, waa lagu dabar goyn doonaa, waa lagugu danaysan doonaa, waa lagaa dulboodi doonaa, waxaa lagugu tilmaami doonaa doqon, damiin, waxaa lagugu tilmaami doonaa qof daniista ah, waxaa lagugu tilmaami doonaa qof dantiis moog ah, waxaa lagugu tilmaami doonaa qof damana ah, waxaa lagugu tilmaami doonaa qof damiir laawo ah. Arrimahan aan kuu sheegayo oo badan iyo kuwo kaleeto oo badan waxaa laga yaabaa inay kugu soo dhaceen ama ay kugu dhici doonaan. Waxaan aan kuu sheegayo wax aan haddeer xumaan aan kugu saadaalinaya maahan ee waa xaqiiq jirto, habaar aan ku habaarayana ma ahan ee waxaa waaye hubaal wax jira ah, maadaama dadka ay iskugu jiraan boqolkiiba konton dad fiican, boqolkiiba konton dad xun. Waxaana hubaal ah boqolkiiba konton haddii dadka saas yihiin oo kala baroo bar ee ma arkino xumaantan ay ka dhici karto ama qaladaadkan ay ka dhici karaan, in aad la kulmi doonto qaar ka mid ah dadkan. Marka waxaan aan meeshan kaaga sheegayo xumaantan aan kuusoo sheegay, dayacaadan, danaysigan, dulmigan lagugu sameynayo dhan ma ahan habaar aan kula damacsanahay ee waxaa waaye digniin aan rabo inaan kuu diga adiga dadkaas inay jiraan dunidana ay ka buuxaan oo aanan rabo maantay daawadeyda inaan kula wadaago dadkaas sidaad iskaga difaaci karto. Haddaan ku dhaha marka waxaasoo xumaan ah qofka kugu sameeyey, wax haddii lagugu sameeyey ay kugu soo dhaceen, waxay xumaantaas wax kuu dhibi kartaa ama damiirkaaga wax u geysan kartaa ama dareenkaaga wax yeelayn kartaa ama dhimirkaaga wax u dhibi kartaa markii aad u ogolaato xumaantaas in ay kula degto, ay ku wax yeelayso, markaas ay xumaantan wax badan ku dhibi kartaa. Sababta aan kuu leeyahayna waxaa waaye tusaale waxaa kasoo qaadataa adigoo diaspora ah aad dalkii tagtay jimicsi oradaa tiri banaanka u bax jimicsi aade, adigoo ma arkino banaanka ordaaya ah waxaa ag martay carruur iska ciyaaraya dugsiga fasax u yahay, adoo saas u rucleynaya carruurta ood ku ag dhaaftay. Carruurtii ninkan keligiis iska ordaya maxaa waaye isleeyihiin ma arkino meesha orodka lagama yaqaano u maleynaa, waxay ku leeyihiin marka way kaa soo daba cararayaan, waa waalayahay jinniyow qaba, waa waalayahay jinniyow qaba sida carruurta dhihi jireen. Adigii marka waxaa kuu furan wadooyin badan aa kuu furan, waa waalayahay jinniyow qaba marka lagugu dhahay carruurta inaad ka daba carartid oo aa ciirsatid, ma anaa waalan haddaanan kabtiina jarin aa carruurtii ciirsanaysa. Adigoo carruurta ciirsanaysaa islaana kaasoo horbaxday waxay ku tiri war kaale ma waalan tahay, maxaa kuu dhacay? Maya ma waalin, carruurtaana waa waalan tahay ugu leeyahay iska celina. Marka hadday kuu leeyihiin waa carruur ilaahay caqligooda intaas ka dhigee, adiga maxaa u ciirsanaysaa ma iskaga hartid? Eedda adiga waaba kaa shakiyaa leedahay ma carruurta ilmahaaga maa ku jiro, maxaa aniga daaca igu sii raacanaysaa? Carruurta iyo dulmiyi waa kuwaasa ina iska celiyaa rabaa. Markaas waxay ku leedahay eedda ama wax ka jiraan carruurta waxay kaa sheegayaan oo aad waalan tahay, yaa maxaa tiri? habartiya waxa u qabsanaysaa ma arkina daalac u sii raacanaysaa, rabtay inay ku caawiso. Markaas ayadana waxay ku leedahay may waxba kuma dhihin wiilkaygiiyow, waxaa ku leeyahay carruurtan ujeedaa iska sii circiirso, iscirciirsada adiga iyo carruurta. Markaas intay sii jeesatay waxay leedahay walla ilaahay caqliga u soo celiyo qofka ma arkino waa kuwa qurbaha kusoo baashay. Marka taasaa dhici karta haddii carruurta ay saas sameeyaan oo saas u dhaqantid, adiga hadhowt markay saas dhacdo carruurtii aa circiirsatay, qofka ku caawin rabo macnaha daalaca u raacatay, gurigiyaa ku laabatay, xaafadda markaa ku laabatay niyadaadiya macnaha wixii ee habarta islaanta sheegaysay iyo carruurta waxay kaa sheegayeen iyo sidaa u dhaqantay dhan uurkaagii shaki geliyeen. Gurigiyaa ku laabatay, adiga isla sheekaysatay, waxaa tiri amay run yihiin waxan ay sheegayaan oo macnaha runaa u qaadatay, shakiga kuu soo laalaabtay, arrintii aad ugu fikirtay, gurigiyaa kasoo bixi weysay. Nafsadaada ma ujeedaa waxaa maalintaas dhacdadaas yaroo kugu dhacday waxay kugu kaliftay inaad guriga ku jirtid, xoogaa shaki galo maskaxdaadii adiga inaa waalan tahay iyo in kaleeto laga yaababa inaa aamintaba inaa waalan tahay. Marka dhacdadaas yar xanuunkaasay kuu geysatay, waa qaybta koobaad sida ula dhaqmi lahayd. Laakiinse waxaa kaleeto ula dhaqmi kartaa carruurta markii waa waalan yahay jinniyow qaba, waa waalan yahay jinniyow qaba inuu dhaho inta dhoola cadaysid orodkaas ka sii wadan kartaa. Ilaahu ninaa wax oginaha cadaabinaa leedahay markaas carruurta ileen ma og ma arkino inaad jimicsanaysid, saasoo u dhaqmi kartaa. Ama waxaa inta istaagtaa waxaa dhihi kartaa war bal kaalay waxaa idin sheegay horta horeeta ma arkino waxaan ala sameynaa sports la dhahaa inaad jimicsadaa rabaa
bal kaalay adinkana dad orod ku fiican inaad tihiin u maleynaa bal kaalay ila jimicsada laba bar meeshan ku soo wareegnaa caruurtii u jeedaa saasna waa loo dhaqmi kartaa marka inaa ayaga u sharaxdid oo wixii ka jaahil bixisid waxa sameynaysa aysan aqoonin iyo inaad dhahdid inta dhowla cadays iskaga sii socotid waa samayn kartaa qofka kalsoonidiisa dhisantahay caqligiisa caafimaad qabo sida uu u dhaqmana waa sidaas oo macnaha inuu kasii socdo oo waxyaabo yaryar oo qof xun uu sameeyey uusan nafsadiisa u ciqaabin uusan asaga isku ciqaabin uusan noloshiisa u xumaynin midka laga rabo waa midaas waa qofka marka walaalkay ama walaashayda qaaliga ah haddaa adiga nafsadaada xushmayso qadariso kalsoonidaada dhisto waxaa waaye sida lagaa rabo inaad u dhaqantid waa sidaas murtiya waxay leedahay maraakiibta ships do not sink because of water around them but they sink because of water into them maraakiibta uma degaan biyaha ee dul marayaan dartood ee maraakiibta waxay degaan markay biyaha dulucdooda soo galaan ayaga ma u jeedaa maraakiibta markay ayaga biyaha soo dulucdooda ama dhexdooda ay soo galaan ee fadhiistaan biyahaas uu markabka degaa ee markabka intuu biyahaas dul marayo ma dego marka markabka iyo maxaa iska gala isleedahay ninkan iyo aadanaha maxaa iska gala ninka hadalkiisa asoo soo wato wuxuu leeyahay what happens to a man is less significant than what happens within him qofka waxa ku dhacayo ma u jeedaa waxyeelooyinka qofka ku dhacayo waxaa ka muhiimsan waxa uu qofkaas macnaha gudihiisa ka dhacayo waxa gudihiisa ka dhacayo macnaha qofkan siduu ula dhaqmaayo dhacdada asaga ku dhacday oo biyihii macnaha maraakiibkii markabka inta horeeto uu asaga dhisnaay uu saas u dhisnaay biyaha asagaa dul jeexayo oo saas u dul jibaaxayo oo u dul marayo laakiinse maalintay biyaha gudihiisa soo galeen ama duleel hoos ha ka soo galaan ama kor ha ugu soo degaan maalintay biyihii markabka dhex fariistaan maalintaasuu markabka degaa marka waxa tusaalahan usoo qaadanaya waxaa waaye qofka markabkaasoo kaleet kasoo qaad haddii asaga ma ujeedaa waxyaabaha banaanka ka imaanayo ee gudihiisa fariistaan waxyaabahaas xumaan ee u keenaysaa dhimarkiisa wax u dhibto dareenkiisa wax uu ku damqado ka yeesho mustaqbalkiisa iyo noloshiisana waxyeeleyso marka muhiimadda ma ahan dadka banaanka jooga waxay sheegayaan dadka runta ma jeclo dadka banaanka jooga waxay sida qof xun dabcan waan kuu sheegay boqolkiiba konton dadka waxaa waaye dad fiican kontonka kaleetan waxaa waaye dad qalad ka dhici kara waaye marka qof qalad ka dhici karo inuu kaa hor soo bixi karo waxaa waaye 50-50 waaye aad labada qof midaa macnaha qalad ka dhici karaa waa hubaal waaye marka qofkaas qaladkiisa dartiis noloshaada inaa u baabi'isid mase in aa macnaha qofkaas qaladkiisa ilaahow ha kasoo laabsiyo qofkaas macnaha inuu qofka lagata dhaawac u geysiyo ilaahow ha ku kalifin dheh oo adigina macnaha dhaawac uu qofkaas ku geeyey aa iska soo dheydid oo aa iska soo daaweysid murtida marka saasay ku leedahay dadka runta ma jeclo walaalahay waxaa waaye qofka noloshiisa farxaddeeda waajib ka saaran yahay waxaa waaye adiga waaye qof kaleeta ma aha dadkaas kaleeta dhaawacay kuu geysteen way kuu geysteen adiga laakiinse nafsadaada ha waxyeeleyn maxaa yeele nafsadaadan waxaa waxyeeleynaysaa marka ay dhaawacay kuu geysteen aa meel la fadhiisato oo iska dhayi weysid markaas aa nafsadaada waxyeeleynaysaa marka walaashayda qaaliga ah walaalkayga qiimaha badan waxaa ku leeyahay maskaxdaada daryeelkeeda nafsadaada farxaddeeda dareenkaaga dhowridiisa adiguu waajib kaa saaran yahay qofka keliya ah uu waajib ka saaran yahay dunidan arrimahaas aa soo sheegnay maskaxdiisa inuu daryeelo dareenkiisa inuu dhooro nafsadiisa uu farxad geliyo qofka keliya ah uu waajib ka saaran yahay oo dunidan jooga waxaa waaye adiga waaye cid kaleeto oo eersanayso ma jirto calaacalkan iyo macnaha cabashada waxba kuma keenayso ana hadeer niyadda waa kuu dhisi karaa laakiinse wax weyn oo ku caawinayo ma aha wax weyn hedhe oo ku caawinayo ma ahan haddaa laakiinse waa kuu digay aniga arrimahan lasoo sheegay in lagu dayaco in lagu danayso in lagu diido in lagu dabamareeyo in lagu dabargooyo kulli way dhici karaan doqon in lagugu tilmaamo damiinad lagugu eedeeyo danteedmoog lagu yiraahdo daniista lagugu tilmaamo waa wax kugu dhici kara waa laakiinse macnaha markay waxaas dhacaan ma waxaa noqonaysaa markabkii adkaay oo biyaha dul maraayay mase markabkii ay biyaha gudihiisa galayeen oo degayaa noqonaysaa labadaas midkaa noqonaysid iyo ninkii waalnaay
macnaha ninkii oo shaki caruurta wax yar ay ka sheegayeen uurkiisa uu shaki gelinayo oo hadhow sida isku waalayay masa kii wanaagsanay oo macnaha caruurtii wixii ay qabeen fikirka qaldana ay qabeen ka jaahil bixinayo ama intuu waa caruure waqti waxba iskaga dhumin uu is yiraahdo iskaga sii soconayo qofka noqonaysa labadaas qof marka adiga laga rabaa inaad go'aansatid marka ugu dambeyn sida nooga barateen qalabkii iyo talooyinka hadduu ilaahay idin wadaagi jiray idin wadaaga 3 qodob waaye 4 qodob hal qodob oo kamid ah idin soo sheegay qodobka koowaad marka waxa qofka inaad ogaatid qofka kali ah oo noloshiisa iyo daryeelideeda farxadeeda ee waajibka ka saaran tahay oo mas'uuliyadiisa qaadaya inuu yahay adiga uu yahay qof kale oo eersanaysa mala wixii kugu dhacay qofkan uu kugu sameeyay qofkan wuxuu kugu sameyn lahaa uu kugu sameeyay adiga laakiin hadeer waajibka saaran yahay noloshaada inaad daryeeshid qodobka labaad wixii tagay way tageen macnaha qofka ku dhaawacay qofku ku dhaawacay dhaawacuu ku geystay uu kugu daneystay uu iska sii tagay asaga nafsadiisa noloshiisa farxadeeda kale uu iska raadsaday laakiin adiga dhaawacuu qofkaas meesha ku geeyay dhimarkaaga wax u dhibay dareenkaagu uu waxyeelay ilaa iimaantana iskama dhayin oo meeshaas fadhisaa oo waxa leedahay qofkaas si xun ee kale qofkaas hal maalin uu qalad sameeyay adiga laakiin noloshaadii oo dhan ciqaabtay cimrigaaga meeshaas fadhisaa oo qofkii wuxuu ku sameeyay ka sabr la adaa inta is daaweyn lahayd oo qofkii xataa laga yaabo birta asaga maalin daaweyn kartaa maadaama uu qofkii si kale u dhaqmo uusan aqoon marka wixii tagay way tageen iska iloow dhacdooyinka dhacay iska iloow cashar ka baro qofkaas oo kale hadhuut ma arkino iridaada ka xiro isku soo ag dhawaanin adiga laakiin ina meesha sii fadhiisa maahan ina dhaawacaaga dhaydo waay ina dhaawacaaga dhaydo waay maantana isku daydad oo macnaha wixii ku soo gaaray ina energy ka heshid ina cashir ka baratid ina ku sii horumariyaan inay ku waxyeelayaan ma ahan marka iska iloow waayo wixii tagay midda koobaad midda labaad dhahe midda saddexaad arinta saddexaad waxa waaye dib u habeen isku sameey dib u habeen iyo dayactir baabuur camal adiga ma arkino baabuurka haduusan asaga dayactirneen oo asaga qalabkiisa la dhisin ma dhaqaaqi karin ogtahay dad kale tan siima qaadi karan marka adiga dib u habeen isku sameey is dayactir macnaha si isku dayactiraysa kalsoonidaada dhisaysa nafsadaada qiimaheeda ina istusta isku dayaysa qanaacadaada ma arkino kor u qaadaysa waa isticlaanaysa waa is xushmeynaysa adiga is qadarinayo dadka kale aqoonsigooda xagga ii dhiga leedahay horta aniga is aqoonsado maanta marka intaas gaartid oo kalsoonidaada dhisid nafsadaada xushmeysid is qadarisid isticlaatid oo adiga is aqoonsato horta qof qiimo badan inaad tahay dadka kale xumaantii ka sheegayaan waxba kaama dhibayaan maxaa yeelay waxa og tahay ama waa ku qosleysa ilaahu nina wax ogeen cadaabina leedahay ama waa u sharaxaysa waa ka jahil bixinaysa waxaas ay aaminsan yihiin laakiin marnaba wax kuma geysanayaan maxaa yeelay adiga isku qanacsan qof is soo dhisay tahay marka dib habeen isku sameey dayactir isku sameey si aysan dadka kale xumaantooda aysan dameerkaaga wax ugu geysan qodobka ugu dambeeyo oo Allah uga mahad celi awoodan inuu Ilaahay ku siiyay inuu macnaha muuqaalkan Ilaahay inuu kugu kulansiiyay oo aad aragtay ama meel kale Ilaahay kalsoonida inuu ku dhaliyay qof adag inuu ka dhigay qof fiican inuu ka dhigay ama uu kula kulmiyay walaal fiican aa leedahay asxaab fiican aa leedahay waalidiin fiican aa leedahay daris iyo dad fiican استقانين على هذا أو مركز تيتو معناها كسوس عيد ترين يدي كوسو ديسي تري أو أديجا ما شاء الله قف وناكسن كاسو ديجي أو قيمها مفيدة مرك إلهي يوم هاد إلي هرتورات أديجي إنه قف كان في عن أو كاديجي وناجن كوجرنسي أديجان معناها أينا نفس الدعاء كلسوني ذكر أوقات كوجرنسي تذكر وناكسن وكل كلنسي مركا أنت سيشيد محلقة ربها لكن وناجي إنرجي هش أو أديجي صوت شاكي جريستي تذكر كلات إنا حكسيسيس هذا مفيدة adduunyada waa la kala daciifsan yihiin dadka kaleeto wax ka sii gaarsii qofka xaaladan ka soo baxda ku jiro hadduu Ilaahay idin dariskaaga walaalka wax ku dhow ahaadaan asxaabtaada ku caawi qofkaas waxa aad ku caawin karto marka walaashayda qaaliga ama walaalkay qaaliga ah dardaarankayga maanta intaas ku soo koobaa waxaan ku rajeynayaa inaad noqotid qof dhaawacyada loo geysanayo aysan wax u dhibin ma arkino cashar ay u noqoto nafsadiisana dhiso dadka kaleetana caawiyo asagan is caawiyo ballanteenu waa raad san